ninkii dadkan horumarkiisa raba taariikhdii quruxda badneed ay lahaayeen raba inay sii wadaan ha ka waantoobaan in ay xukunka ku raadiyaan si guracan dawladdan aan mas'uulka ka ahay madaxda ka ahay madaxweynaha ka ahay waxaan diyaar u nahay tartan shariif oo banaanka yaala ninkii ku fakaraya inuu xoog wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya qabyaalad inuu wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya dacaayad iyo dad kale inuu wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya dadkii shalay Puntland la dagaalamay ee burburinayay ee meelaha kala jiray inay maciin ka dhigtaan intaasba waa iga talay ka digtoonaada si memberkan ah waan igala talinaya Puntland waa waaraysaa waa jiraysaa waa joogaysaa taariikhduna waa qormaysaa dadkeeduna horena uma dhicin haddana dhici mayso inay xadgudub aqbalaan mar walba madaxda Puntland joogta waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan waxa weeye karaamada iyo sharafta dadka Puntland ay ilaaliyaan wixii aanu cuntamin inay dhahaan maya wixii dadkan dantiisa inay noqdaan kuwa ugu horeeya inaysan noqon dad la iibsan karo inaysan noqon dandanahooda ka shaqeeyo waxaan u baahanahay aragtidaas waxaan anigu goobjoog u ahaa oo saddex guri iska soo horjeeda imaaraadku oo deganeen madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadde iyo guri aan deganaa waa iska soo horjeedaan saddex guri iska soo horjeedahay noloshii markii ay ka tageen xukunka ay ku noolaayeen waan arki jiray waxay ahaayeen dadkooda u soo shaqeeya dad ka shaqeysta ma ahayn taariikhdaas marka lagu xadfo Suldaan Maxamuud Cali Shire iyo Boqor Cismaan iyo Suldaan Kennedy iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo kulli wax walba intii loo ballan qaaday coloniskii markaa jira ma yiri waxaan u baahanahay dadkan karaamadooda iyo sharaftooda in la ilaaliyo taariikhdoodana la qoro cid kastoo diidan baaqi bay ahaanaysaa dadka isticmaalkii reer galbeedka xilliga awoodda badnaa ka diiday wax khaldan cid kale oo laga yeelay ma jirto kullu inta aan joogo marna suuroomayso taariikh khaldan inaan ka tago wax dadkan aan dan u ahayna inaan aqbalno ma suuroomayso marka waxaan rajaynayaa waxa danta ku jirta aan ka wada shaqeyno saasa danteena iyo jiritaankeena ku jiraysa